إيران iyo Mareykanka madaxweynaha Iiraan oo hadal la yaab leh caawa sii daayay kaasoo ku saabsan in awoodii dalka loo qaybiyay madaxda maamul goboleedyada ama madaxda gobolada dalkaas xaalku faraha ayuu ka sii baxayaa haddii dagaal bilowdo nin walba gobolka uu xukumo isaga ayaa madaxweyne ka ah go'aanku rabo ayuu qaadan karaa si aan la isugu soo laaban nin walba halkiisa ayuu iska difaaci doonaa haddaba Iiraan waxay u diyaar garowday dagaal waxaa kale la sheegayaa in Iiraan ay ka shaqaynayso ciidankeeda badda sidii ay miinooyin ugu xabaali lahaayeen oo ay u xiri lahaayeen marinbiyoodka Hormuz marinbiyoodkaas haddii la xiro dhammaan ciidamada Mareykanka ee jooga khaliijka way go'doomi doonaan waxaa kale go'doomi doona dowladaha khaliijka dhamaantood haddaba qodobadaas barnaamijka ayaynu ku faahfaahinaynaa dhanka kale madaxweynaha Iiraan iyo Maxamed bin Salmaan ka Sacuudiga oo telefoonka ku wada hadlay haddaba warbixinadaas ayaynu caawa soo ururinay oo aan barnaamijkeena ku faaqidaynaa inta aan ku jirno barnaamijka warar cusub hadday soo kordhaan waan idin la socodsiin doonaa waxaa sidoo kale naga xusuus ah inaynu maanta oo talaado ahayd soo daynay qisadeenii talaadada aan ugu talagalnay janalkeena kale ee qisooyinka nadaara laba dadka qisooyinka aadka u xiiseeya halkaa waxay ka heli doonaan qiso cad kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeennimo haddaba waa xilli saqdhaca ah magaalada London oo aan barnaamijkan kasoo duubayo waxaan soo ururinaynay wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn haddaba wararka ugu waaweyn waxaa ka mid ah Iiraan oo u diyaar garowday dagaal waxay diiday Iiraan dhammaan shuruudihii uu wada hadalka ku soo bandhigay ninkii Trump ahaa shuruudahaas xalaa idin sheegay gantaalaha baabi'iya nuclearka waxa ka sameynaysan dhan joojiya taageerada asiinaysan awlaadda joojiya waxaas wax nagu socdo maahan adeero waxa haysakeen Mareykankuna waxay sheegeen inay dhoolatus ciidankiisu ka sameynayaan gobolka si ay ugu diyaar garoobaan dagaal lagu qaado Iiraan waxba dhoolatus sameynayeen soo socda madaxweynaha Iiraan ayaa goordhow hadlay wuxuu sheegay in awoodii dalka ay si toos ah qolo walba meesha ay joogto ay u maamuli doonto oo ay markaa isku tashan doonaan isdifaacidda ciidanka iyo waxa dhan xataa haddii ay dhacaan madax sare inay ku dhintaan dagaalka waa in Iiraan ay isdifaaci doonto ilaa marka ugu dambaysa hadalkan ayaa wuxuu ahaa hadal weyn oo caawa soo kordhay haddaba aan idin tuso telefishinka Sky News ayaa wuxuu qorayaa iyadoo loo diyaar garoobayo dagaal Baskiyan oo ah madaxweynaha Iiraan waxa uu siiyay ragga muxaafidiinta ah awoodo dheeraad ah oo ay markaa ku maamulayaan goobaha ay iyagu mas'uulka ka yihiin warbixintu way sii socotay waxaa la yiri madaxweynaha Iiraan Mas'uud Baskiyan ayaa awoodiisa waxa uu ku wareejinayaa dhinacyada kala duwan ee xukuumadda iyo gobolada haddii uu dhaco dagaal waxaana uu sheegay marka ugu horeysa dagaal ay soo qaadaan Mareykan iyo Israa'iil in nin walba meesha uu joogo madaxda gobolada iyo kuwa xuduuduhu ay iyagu awaamirta iyo howlaha soconaya ay halkaa ka dhaqaajin doonaan waxay ka shaqayn doonaan sidii badeecooyinka aasaasiga ah dadku aanay u weyn lahayn wasaa'ilu iclaamka rasmiga ah iyo warbaahinta rasmiga ah iyo arrimahaas oo dhan in cid walba ay markaa meesha joogto mas'uul ka tahay warku waa cadiye bal isugu soo noqonaa madaxweynaha la yahay maxaa go'aan ka sameynaa ma jirto nin walba gobolka uu maamulo isaa madax ka alin waana muxaafidiin dadka muxaafidiinta waxa waaye dadka kacaanka cabsan waay kacaanka islaamiga meelaha dhan haysta marka maaragtay rajo looga qabo inay dhibaato keenaan ma ah marka raggaas muxaafidiinta ah ee aqaaliimta ama gobolada gacanta ku haya awoodda adika haystaa la yidhi cid fabreeg u qabanaysa male madaxweynaha la yahay waa dhintay ama ayatullaahi la waay ma jirto nin walba
shaqada meesha iska wadaa saraakiisha ciidamadana sidaas oo kale amaradooda iyo wuxuuda u haystaan dalka hala difaaca leed wixii nagu soo aada wixii karaankiina qolo walba nagtaha ka saarto xaalku marka halkaasuu marayaa dhanka kale waxaa goordhow telefoonka caawa iyaguna ku wada hadlay mar kale maxamed bin salmaan dhaxal sugaha sacuudiga iyo madaxweynaha iiraan mascuud baskiyan haddaba aan idin tuso telefishinka aljaziira ayaa qoray wuxuu leeyahay dhaxal sugaha sacuudiga boqortooyada ayaa waxa uu sheegay in boqortooyadu aanay marnaba ogolaan doonin in hawadeeda loo isticmaalo weerar ka dhan ah iiraan ma ogolaanaynay dhehen ma aqbalayno sacuudiga in hawadeena laga isticmaalo weerar lagu qaado horey arrinkaas waxaa u sheegay qatar waxaa shalay arrinkaa sheegay imaaraad nin walba lafiisuu u baqayaa war dalkayga lagaama soo weerarayo war aniga nagtaha iga saarin aa lagu hayaa nimanka iiraaniyiinta ah waxaa la leeyahay war nimayo wadankayga laydinmasliska markii soo weeraraye ee idinka naga ilaaliya waxaa tuuri rabtaan nimankii lalahaa waay barnaamijkankii ka horeeyey nuclear ay tijaabsadeen iiraaniyiintu niman laga baqa waayihiin haddaba warkaas isaguna waa soo kordhay oo wararkii ugu waaweynaa ayay ka mid tahay waayahay qodobka kale ee isaguna soo kordhay waxaa ka mid ah iiraan way diiday shuruudihii uu la yimid ninka la yidhaha trump ciidan kasta soo dhoobay dheheen meesha wax shuruuda oo aan kaa aqbalayna male gantaalahaaga baabi'i ma waraa ma samaysan kartid gantaalo dambe oo israa'iil halis ku ah waxaas ma kaa yeelinay dheheen sheekh haye midda kale maxay ahayd qodobka kale wuxuu ahaa nuclearkaaga uraniumka dhan baabi'i si aanan looga shakin inaad nuclear samaysanayso war waxaas nagala tagay dheh midda saddexaada ugu daran awlaadaada waxba ma taageeri kartid xuuti iyo xisbullah iyo kuwa ciraaq jooga iyo waxaa rabta soo daaya dheh haddaba markaan idin tuso aljaziira oo arrinkaa ka hadashay trump waxa uu dhoobay ciidamo gobolka si markaa ay u wajahaan oo ay u weeraraan tahraan waxay diiday shuruudihii nabadda ee uu soo bandhigay ninka la yidhaahdo trump haddaba dagaal miyaa dhici doona saa laga sugayaa dagaal ma dhici doonaa shuruudihiisi waa la diiday iiraan niman wax isku og waaye haddaba marka sheekadu halkaas ayay caawa taagan tahay hal qodoboo muhiimaa noo dhiman laakiin xayisiintaan ka hormarinayaa biyo xireenka maalka waxaa la yidhahdaa biyo mareenka ama badda meesha hormus la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa marinbiyoodka hormusa la yidhahdaa waa meesha iiraan ay albaabka u fadhiso khaliijka oo dhan markabkii kasoo baxa iiraana halkaa u fadhisa wixii galayana halkaasay u fadhisaa qariidada idinka tusi doonaa laakiin qadar xayisiisa kadib waa isku soo laabanayna kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan mar kale kusoo dhawaada barnaamijkeena habeennimo qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaynu maraynaa waana barnaamijkii saddexaad maanta aan idiin soo gudbanayno oo talaado ahayd haddaba waxaynu qeybtan ku faahfaahinaynaa iiraan iyadoo arrimo badan ay taagan yihiin waxay sheegtay inay qabsanayso marinbiyoodka la yidhaahdo hormus ciddii qaylinaysa iyo ciddii cabaadaysa ayaday u taallaa marka marinbiyoodka aan idin tuso khariidada marinbiyoodka inta taqaan way taqaan intaan aqoonina halkaanay ka arkayaan marinbiyoodka waxaa la yidhahdaa meesha fallaarta guduuda ah ay tilmaamayso street of hormus alraa waa meesha hormus marinka hormus la yidhaahdo haddaba marinkaas waa albaabka ma ujeedaan iiraan dhankaasay ka fadhidaa keligeedaa dhankaa dhulkoo dhan haysata dhankan marka waxaa wada degan oo badda inay halkaa maraan ay tahay united arab emirates qatar baxrayn kuwait iyo ciraaq gudahaasay ku jiraan waxa keliya oo badbaadaya waa cumaan oo iyadoo bannaanka ka ah ee marinbiyoodka maraykanka maraakiibtiisii baxrayn iyo meelaha joogta iyo saldhigyadiisii qatar iyo meeluu kasoo mari kara ma leh halkaa marka yarka ah iiraan way miineynaysaa qab wax shidaaloo halkaa kasoo baxaya lama arko adduunka waa dabarogmayaa
wax walba way qaaliyoobi doonaan shidaalkii ma soo gudbi karo halkaasaa marka musiibada ugu weyn ay maraykan ku qabsan doontaa la leeyahay marka waa fahmnay marayka hormus istaraatiiji waaye marka kalkii hore oo 12 maalmood inay xiraan ay rabeen laakiin shiinaha ayaa wuxuu yidhi bal u kaadiya dagaalka hadduu joogsan waayo nimanku sii wadaan markaas xir marka dana fara badan adduunka oo dhan uga xir halkaas shidaalkii adduunka oo dhan meesha soo baraya marka halkaas xaalkeedu aadu marka u xun yahay caaw marka xaaladdu halkaasay taagan tahay wixii cusub haddana warbaahintan ka soo ururin doonaa fadlan ku xirnaada barnaamijkayga xaqiiqda ku salaysan innagoo mar walba idinla wadaagi doona macluumaadka iyo wararka aynu soo gudbinayno halka ay ka yimaadeen haddaba asxaabay laaygareeya oo sheergareeya barnaamijka haddii aad nagu cusub tahayna ha iloobin inaad nagu soo biirto si aad barnaamijyadayna muhiimka ahaada ula socoto subscribe ka samayso youtube-ka facebookana follow garayso si aad barnaamijyadeena u hesho wixii soo kordha axwaasha aaday usii kululaanaysaa marba marka ka dambeeya waan idinla socodsiin doonaa barnaamijkaygii caawa waa naga intaa